بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga Soomaaliyeed meel kastoo ka joogtaan adduunka. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa runtii aan marka ugu horeysa aan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan uga mahadnaqno sida isxilqaanka leh oo qurba joogta iyo dadka gudaha jooga ay ugu gurmadeen dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay waxyeelayeen, xoolahoodii ku waayey, nafsadoodina ku waayey qaarkood. gurmadkaas waa waajib, waa wax Soomaalinimadu ayna farayso, waana mar kastaba dadka Soomaaliyeed waxyaalaha runtii muujinaya inaysan dadka Soomaaliyeed ahayn dad xun, laakiin ay yihiin dad aad u fiican oo maaragtay isu gurmada oo isu danqada oo mid ah markii run loo fiiriyo. waxyaalahan siyaasadda oo la dhex dhiga dadka maahane waa dad aad iyo aad u fiican. waxaan ogaanaysaa markii ay waxyaalahan oo kala dhacaan. si kastaba waa u mahadnaqaya dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, annagoo dhan waa u mahadnaqaynaa. waxaa kale oo aan haddii ilaahay ka raali noqdo u baahan inaan isxasuusino, gurmadku waa wax fiican. mar walbaba markii dhibaato ay dhacdo ee dadku ay galaan marxalad murugaysan, colaad ay dhacdo, ay geeri timaado, abaare ay dhacaan ama musiibooyin kale ay dadku ku habtaan, mar kastaba waa xaalad emergency ah, dadkuna way kacaan, waxbayna ka qabtaan. sidaan soo sheegana waa waxa dadka Soomaaliyeed lagu faaniyo ama lagu ammaano. laakiin waxaan jeclaan lahaa bal inaan xoogaa taabto maanta arrinta abaaraha, inaan xoogaa ka taabto, taasoo ah abaaruhu waa soo noqnoqdeen runtii. sanadii ugu dambeysay waxaa u malaysaa waqtiyada ay abaaruhu kusoo toosayaan inay yihiin waqtiyo isbeddel ay dhacaan. ma aqaan inay isku xiriyin in kale. abaartii ugu dambeysay waxay dhacdaan u malaynaya 2011 markii isbeddelkii siyaasadeed dalka uu ka socdo oo kala guurka ahaa. kan hadduu kusoo toosay, abaartan hadday kusoo toostay. ma rabo inaan noqdo nin oo conspiracy iyo waxaan loo joogin ka hadla iyo maaragtay wax markaa aan la xaqiijin karin. laakiin marka u fiiriso waqtiyada ay dhacaan abaaruhu, waa waqtiyada siyaasaddu ay ku jirto marxalad isbeddel, ama mar hoggaan laga bedelayo oo doorasho ay socoto oo maaragtay loo tartamayo hoggaanka, ama mar laga gudbayo marxalad oo marxalad kale loo gudbayo sidii 2012. haddaba si kastaba ha ahaato, waxaan filaya inay tahay coincidence wax isaga soo tooso waqtigaa, laakiin aysan ahayn wax la qorsheeyey, waayo wax qorsheyn karaa ma jiraan. ilaaha maaragtay waxyaalahaasoo kale qorsheyn kara. hase ahaato, abaarahan waa soo noqnoqdeen, maaha wax hadda dhacay, maahan wax nagu cusub, maahan. waxaan soo aragnay abaartii daba dheer, abaare ka horreeyey 60meydii, 40meydii, 50meydii. abaaruhu way dhacaan Soomaaliya, waana wax dhici jiray. laakiin hal mar ayaa runtii abaaraha wax laga qabtay, walow abaarta ay ahayd abaarihii ugu darnaa. walow dadku ay leeyihiin maanta abaarta jirta maanta waa abaartii ugu darnayd bulshada Soomaaliyeed soo marta taariikhda intay jirtay. haddana markii dadna waxay qabaan oo ay leeyihiin abaartii dhacday 70meydii ee loogu magac daray abaartii daba dheer, waxay ahayd abaaraha soo mari Soomaaliya, abaaraha ugu xun bay ahayd, mid ka mid abaaraha ugu xun bay ahayd. markii la fiiriyo taa
waxaan is dhihi karnaa abaartii daba dheer ma ahayn abaar ka liidata middan haddii aysan kasii xumayn kama aysan liidan abaarta hadda ka jirta dalka waxyeeladeedu way kasii badnaayeen ama way kasii badan karaan laakiin kama hoos mari karaan waa la simi karaan waa ka badan karaan laakiin kama hoos mari karaan sidaa oy tahay abaartii daba dheer waxbaa laga qabtay wax la taaban karo isbeddel baa la sameeyey oo runtii dadkii abaartu ku heshay dhulka ay xoolo dhaqatadu degto in laga soo raro oo la keeno dhulka kalluumaysatada iyo beeralaydu ay degaan oo la keeno dhul bannaan oo aan maaragtay sida dajuuma iyo sablaale oo maaragtay ku kala yaalan filaa shabeellada hoose iyo jubbada dhexe iyo baraawe oo kalluumaysato la geeyey si ay malaayig u dabtaan iyo meelo kaloo badan oo dalka ka mid ah dadkii marka waxaa la sameeyey xirfaddii xoolo dhaqashada laga soo raray waxay bilaabeen xirfad ka duwan xirfaddii ay ku shaqaysan jireen oo ahayd xoolo dhaqashada amaba nolol maalmeedkooda ku xirnaa ayaa loo bedelay qaarna waxaa laga dhigay beeraley kuwana waxaa laga dhigay kalluumaysato runtii mashruucaasi wuxuu ahaa mashruuc abaaraha wuxuu ahaa mashruuc aad iyo aad u dhaxalgalay oo dad badan badbaadiyey wax dhaxalgalana ka tegey kadib intii xukuumad dowladii jirtay abaar noocaana ama tii daba dheer oo kale mid la mid ah ama midda tan hadda dhacday ama hadda socota mid la mid ah ma aysa dhicin taana waa ilaahay mahadii laakiin waxaa la is dhihi karaa mar walbaba colaadda iyo dowlad la-aanta iyo abaartu way isla socdaana la dhihi karaa waayo markaa u fiiriso abaaraha dhaca ee hadda ka dhaca Soomaaliya waxyaalaha ugu badan ee keena khaasatan dhulka beeraleyda ah waxa ugu badan dadkii iyo maaragtay kaydkii ay dhigan jireen ama bakaartii ay duugan jireen oo aysan duuginin colaado awgood iyo waxyaalo kale awgood waxyaalo ka imaanaya dowlad la-aanta iyo xasilooni la-aanta lama dhihi karo 100% xasilooni la-aanta iyo dowlad la-aanta ayay ka imaanayaan abaaruhu lama dhihi karo 100% oo lama xaqiijin karo taa laakiin dowlad la-aanta iyo maamul la-aanta iyo colaadaha abaarta way sii kordhiyaan waayo dadkii wax soo saarkii iyo nabaddii ay wax ku soo saaran lahaayeen ayay maaragtay colaadda ku hor istaagtaa dowlad la-aantuna waxay keentaa maamul iyo is-abaabul inuusan dhicin oo dadkii ay noqdaan dad aan shaqaynin taa marka waxay keenaysaa in bulshadii ays wax soo saaranin haddays wax soo saaraninna bakaar inaysan duuginin sida beeralaydu sameeyaan geleyda markay soo go'do intii markaa loo baahdo ama ha la gado ama ha la cuno waxaa la sameeyaa inta kale waa la dugtaa bakaar ahaana loo dugtaa si markii jilaalku yimaado loola soo baxo oo loo cuno runtiina dadka beeraleyda isku filayn mar kasta haddii ay maarata bakaartoodaas dugtaan waxa kaliya u baahan yihin waxa waa goosaar goosaartoodana ama malaha soo dabtaan ama maaragtay hilib ha soo gataan ama qudaar ha karsadaan ama caano maaragtay garoor ama waxay noqdaanba ha samaystaan adu goosaar un bay u baahanayaan haddii ay maaragtay bakaarta dugtaan laakiin raashinkii adkaa oo ay u baahnaayeen way haystaan marka abaar dadku ma arkaan bakaarta awgeed gobolada roobka ku xiran ee xoolo dhaqatada ayaga xaaladoodu waa bariga dhexe mar haddii biyo la-aan ay dhacdo oo roobku yaraado waxaa dhacaysa in dadkii aysan daaqii inuu dhammaado dhacaysa waxaa dhacaysa ceelashii biyaha laga cabay ama balliyadii biyaha laga cabaayey ama warihii biyaha laga cabaayey inay guraan ayaa dhacaysa oo ay soo haraan ceelashuna ma badanaa ceelasha biyaha leh badankood ma badna oo kuma filna xoolaha
daaqna ma abuuri karaan oo haddii la rabo in geedihii la waraabiyo waa in ceelkii la tagaa oo biyihii lasoo qaadaa biyaha haana lagu qaadaa in maarata ratigin 4 haan u qaadaa haamahaas in biyaha lagu soo shubo kadib in la geeyo maarata meelihii geeduhu ay ka baxayeen lagu ma dhici karto waa qorshe aan maarata suurtagelaynin oo reer baadiyaha ama dadka reer miyiga xoolo dhaqatada ay samayn karin haddaba marka haddii biyihii balyadii ay guraan warihii ay ka guraan dadka biyo la-aan ay ku dhacdo geedihii ay cagaarkii uu caleentii ay maarata ka qalasho biyo la-aan awgeed oo waqti jiilaaloo xun la galo runtii nolosha reer miyigu aad bay u adag tahay in maarata haddii arrin noocaasi ay dhacdo inay ka badbaadaan way adag tahay waayo xooluhuna waxay cabaan biyaha si ay u noolaadaan doogana way daaqaan si maaragtay nafaqa ay u helaan oo caano looga helo haddii biyihii la waayo dooggiina la waayo caano neefkii ma yeelanayo haddii caanihii la waayana dadku waxay cunaan ma helayaan marka ciladahaasaa jira waxaa lagu badbaadaa in maaragtay caanaha iyo maaragtay daayetka ama raashinka ku xiran xoolaha ama sidii hilibkii caanaha in marka qaar laga maamulo dadka ee bur iyo wax duugtaan oo maarata waxyaala kala samaystaan laakiin taa nafteedu way adagtaa waayo dadkii lacag ma haystaan dhaqaal xumaa jirta waxaa jirta nabadgelyo la-aanaa jirta maamul la-aan ayaa jirta dadkii ma haystaan wax dibad wax looga soo dira maan qof lacag haysta maanta ma jiro haddii dadka naftooda reer miyiga ah haddii ay maaragtay haystaan cunno hadday haystaan ama galey ay haystaan ama masaga ay haystaan oo xooluhu waxoodaas tuntaan laga yaaba inay ka badbaadaan oo jiilaalkaas ka gudbaan xooluhu ka dhintaan laakiin ay waa badbaadi karaan laakiin hadda dadkia dhimanaya micnaheedu waxay tahay waxay cunaan ma haystaan dadkii xoolihii wixii ay ka helayeen hilibkii caanihii ma haystaan raashinkii kalena ma haystaan marka abaartu waa ka weyn tahay doog la-aantu waa ka weyn tahay roob la-aantana waa ka weyn tahay waxyaalo badan ayaa jira waayo hadday doogga iyo maaragtay ku xiran tahay daaqa dadku wax kaloo ay cunaan ayay heli lahaayeen ama galey ha noqoto saan usoo sheegay ama masaga ha noqoto ama bur ha noqoto ama qamadi loo keena ha noqoto wax uun bay heli lahaayeen oo ay cuni lahaayeen waxa meesha cad marka caanihii iyo hilibkiina male wixii kaloo adkaana male dadkii marka baahi bay u dhimanayaan waxyaalahaasoo dhan runtii waxaa ugu wacan maamul la-aanta ayaa ugu wacan dadku haddaysan lahayn maamul dadku haddaysan abaabulnayn oo aysan talo lahayn isku duubni aysan jirin dhibaatooyin hadday soo wajahaan inay ka hortagaan way ku adkaanaysaa suurtagalna maaha shakhsi markii ay wax ku dhacaan asagaa go'aan gaara wuxuuna ka shaqeeyaa waxaa ku dhacay suu xal ugu heli lahaa haddii ay biri goyso wuxuu ka shaqeynayaa birtaa meeshii ay ka goyso inuu iska daaweeyo iska tolo wixii loo baahnaa inuu ku sameeyo wuxuu asaga samey kara inuu sameynaa wixii kalena meel loo baahanya inuu tago ama takhtar ha noqotu tagaya laakiin bulshadu markay dhaawac noocaasa uu soo gaaro abaaro ama wax la mid a ama colaad ay soo gaarto waxay u baahan yihiin go'aan inay qaataan guud ahaaneed oo talo guud ay ka dhexayso taladaa guud way maqan tahay haddii taladaa guud la helo hogaankii fuli lahaa waa maqan yahay oo dadkii maleh hoggaan ma leh taana waxay ka micno tahay maamul la-aan ayay ka micno tahay dadku haddaysan lahayn maamul ama dowlad aysan lahayn dowladdu maaha magaca dowladdu waa waxa u adeega bulshada dowladdu waa waxa ka hortaga musiibooyinka dowladdu waa haddii daad uu yimaado waxa daadkaa ka hortaga oo joojiya daadkaa waa dowlad haddii cudur ilaahay hanaga haya uu yimaado maanta cudur faafa hadduu yimaado oo u baahan ka hortag dowladda ayaa ka shaqaysa cudurkaa in laga hortago haddii abaaro ay dhacaan maanta oo kale sida jirta maanta oo kale dowladda ayaa ka hortagta waxyaalaha dadku ay soo aruurinayaan laga yaabee dadka
inay ku celiyaan nafta maalin aba lama maalin boqolaal kun haddii looga soo aruuriyo dibadaha malaayiin looga soo aruuriyo maalmay ku filnaanaysaa laakiin wixii maalmaha ka dambeeya dadku waxay u baahan yihiin kaalmo joogto ah waxyaalahaasna waxaa ka soo bixi kara dowlad hadda tusaale waxaan u soo qaatay abaartii dabadheer dadkii markii abaartu ay ku dhacday tallaabada ugu horreysoo la sameeyey waxay waa la soo qaaday waxaa la keenay kuwii dajuuma la keenay kuwii sablaa la keenay sablaa la keenay kuwii barawa la geeyey barawa la geeyey markii ugu horreey waxaa la sameeyey naftaa lagu soo celiyey markii nafta lagu soo celiyeyna xirfad ayaa loo sameeyey ku shaqaystaan xirfaddaa markay heleen ayagii wax soo saartay marka waxaa la sameeyey hawshaa waxaa la sameeyey marka waa la badbaadiyey qofkii markii hore kadibna waxaa loo sameeyey nolol ka duwan tii hore oo markaan suurto gelisay inuusan abaar dambe arkin beerihiisa soo saarto ama kalluunkiisaas aan dhammaanayn soo saarto waay waxaa hubantiya dadka hadda maaragtay gaajada u baaba'ay siyaabo badan ayaa loo badbaadin karaa waa hadday dowladii jirto laakiin haddii dowladii aysan jirin oo bulshadu aysan maamul lahayn wadatashi aysan lahayn musiibadii ku habsataa lagama yaabo inay ka badbaado musiibadii ku habsata lagama yaabo inay ka badbaado lagamana yaabo inay wax ka qabato haddaba annaga ayaan darada haddana haysado waxay tahay abaarta jirta ee dadkeenna ku habsatay inuu roob ilaah inuu roob keeno oo roobka la sugo iyo in wixii la heli karo meelaha laga soo aruuriyo oo 2 maalin iyo 3 maalin wixii nafta lagu celi karo lagu celiyo mahane wax aan qaban karna maanta haddaan nahay Soomaali ma jirto waan runtii waan ayaan daro aad u weyn waxayna ka mid tahay musiibada nagu habsatay ka mid tahay abaaraha dhacaya marka laga soo tago 26 sano ayaan colaad ku jirnaa iyo dhiigbax welina waxa aan ka hadlayno oo si dadka sheegta inay siyaasiyiin yihiin oo bulshada ay hoggaan u yihiin waxa ay ka hadlaan waa wax ama isficil ah oo iska dhicin ah ama waa wax ku xadgudub ah oo labadooduba ah wax bulshada kala qaybiya ama curyaan ka dhiga laakiin ma jiro siyaasi Soomaaliyeed oo maanta u dagaalamaya ama hadafkiisu yahay sidii bulshadan loo midayn lahaa loona badbaadin lahaa laakiin siyaasi walba ama ha noqdo mid qaab diineed u shaqeeya ama ha noqdo mid qaab qabiil u shaqeeya mid walbaba inuu dadka kala qaybiyo danta ugu jirta ma ogi laakiin qiyaastu waxay tahay ama boos raadisho oo qofku inuu helo meel aasaas siyaasadeed uu ka duulo inuu helo ama inuu dhaqaale iyo magac ku helo qaab noocaas aan qiyaasi karnaa laakiin faa'iido kaloo ugu jirtaahay ma jirto taana faa'iido maaha wax maaragtay sii raagi kara maaha marka waxaa u malaysaa in musiibo inayna haysato bulshaduna markii ay xanuunka noocaana ay dareento oo ay gasho xilli abaareed dadku ay abaar u dhintaan xoolihii abaar ay u dhammaadaan colaaddu ay socoto oo abaarta ayadoo jirtaa hadda intaasoo qofooda ku dhimatay qaraxyo dhacay kuwa kale dagaallo qabiil bay isaga dhimanayaan ayadoo maarata abaarta ay socoto colaaddiina way barbar socotaa marka mushkiladaa ayaana haysataa welina ma hayno dhabbihii aan isku qaabeyn lahayn oo aan ku noqon lahayn bulsho tashata oo abaabulan oo maaragtay ka manaaqushoota dhibaatooyinka noocaana oo dowlad iyo maamul leh oo isu gurman karto wax qaban kartaa qaabkii aan ku noqon lahayn ilaa hadda nooma cadda waxaan ilaa hadda u jeednaa tartan qabiil ayaan u jeednaa waxaan u jeednaa shakhsiyaad wax u tartamaya waxaan u jeednaa shisheeye dadkii boobaya iyo dalkii
oo wixii ay rabaan hadda raba inay ka gaarsiiyaan dalku intuu daciif ka yahay dad maaragtay boobkaa socda raba inay wixii ka dhacsan karaan ka dhacsadaan kuwa leh maaragtay degman ka taliya ama gobolan ka taliya ee ku faanaya kuna qanacsan xoogaaga UNDP iyo international NGOska ay ka helaan waxaa socda balaaya socota ma jiro vision ma hayno haddaan nahay Soomaali vision ma hayno aan isku abaabulno ama noo suurtageli inaan is abaabulno oo marxaladan aan ku jirno maanta aan iska saarno mar walbana dhibaatadu aad iyo aad ay u xun tahay dadka inay ku dhacdo xanuun bay leedahay markay dhibaato timaadana dadku waxay bilaabaan inay fikiraan oo ay xanuunka ka fikiraan fikirkuna wuxuu noqon karaa labo dadka caadiga fikirka maaragtay ay ka fikirayaan wuxuu noqonayaa sidee loogu gurmadaa dadka sidee loogu gurmadaa sidee dhiigbaxa loo joojiyaa sidee dadkan abaaraha u dhimanaya loo badbaadiyaa xoolahoodana loo badbaadiyaa dadka caadiga intaa ayay ka fikirayaan waana wax loo baahan yahay laakiin dadku markay leeyihiin siyaasiyiin iyo dad u fikira waxa loo baahan in laga fikiro waxay tahay war abaartan sidee hadda looga gudbaa dadka ay abaartani saamaysay sidee loogu helaa maaragtay wax kale maadaama xoolahi ay ka dhammaadeen qaab ay u noolaadaan sidee loogu helaa sidoo kale sidee looga hortagaa abaarahan si aysan mar dambe u soo noqon waa su-aasha ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in la isweydiiyo su-aalahana waxaa dadka isu weydiiya hoggaanka ayaa isu weydiiya maahan bulshadu hoggaan ma wada aha bulshaduna ma wada fikirto dadka u fikira ayaa su-aalaha isu weydiiya haddaba ma rabo inaan maaragtay ayadoo xilli abaaro lagu jiro ma rabo inaan wax siyaasadeeyo laakiin runta ayaa sidaa ah ma joogno marxalad aan haddaan nahay shacbiga Soomaaliyeed ku fikirno oo sidii wax looga hortegi lahaa iyo sidii maaragtay dadkii wax ka baaba'een loogu heli lahaa xaalad kale awoodeedii ma lihin marxaladeedii ma joogno dad noogu fikiran weli ma hayno haddaba xaqiiqda anagoo ku jirna waxaa muhiim ah in aan ognahay xaqiiqda inaan bal isweydiino war sidee noogu suurtageli kartaa abaarahan oo kale inaysan mar dambe dhicin sideen uga hortagnaa abaarahan sideen uga gudubnaa marxaladdan aan ku jirno ee kala daadashada ah oo aan u noqonaa dad talo wadaaga hoggaana leh oo wixii ku dhaca ama dhibaatadii soo wajahda qaab ay wax uga qabtaan leh oo u abaabulan sidaan u noqonnaa su-aalaha ayaa maanta muhiim ah in dadka nafta lagu celiyo in dadka loo gargaaro oo laga gaarsiiyo wix laga gaarsiin karo xilligan emergency-ga ah waa laga maarmaan laakiin waxaa ka sii muhiimsantaa war sideen u hubinaa inuu qof kale abaar nooga dhiman maxaan qabanaa si aan hadafka u gaarno 100 sano ha qaadato haday rabto xaggeen maaragtay sideen u dhaqaaqnaa oo tallaabadeen qaadnaa waqtigan xaadirka waxay u baahan tahay fikir ayay u baahan tahay waxay u baahan tahay go'aan adagay u baahan tahay waxay u baahan tahay hoggaan ayay u baahan tahay waxay u baahan tahay dad abaabulan oo wada kac ah ayay u baahan tahay oo u wada istaaga inay arrintaa maaragtay la gaaro colaadda in laga baxo waa laga maarmaan kala tafaraaruqan lagu jiro in laga baxo waa laga maarmaan in la yeesho maamul iyo abaabul waa laga maarmaan war in danta guud loo shaqeeyo oo bulshadu ay noqoto bulsho danteeda guud u abaabulan oo keedii waxyeelo soo gaaro ama dhibaato soo gaarto dad u gurman kara inaan noqonno waa arrin laga maarmaan ah maadaama aan arrintaa aanan isu gurman karin marxaladda maanta aanan ku jirin oo danteena guud u abaabulnayn
waa inaan ka shaqaynaa sidaan danteena guud isugu abaabuli lahayn si dadkeena aan u badbaadsano musiibooyinka noocaan haddii ay dhacaan si dadkeena aan uga badbaadsano qaraxyada iyo dhibaatooyinka haysta si aan uga badbaadno dadka qariban ee mushkiladda Soomaaliya ka ganacsada ee ka faa'iideysanaya bulshadan ee ku haya xaaladda ay ku jirto sidaan uga gudbi lahayn waa inaan ka shaqaynaa waa inaan helna qaab aan uga gudubno waqtiyada noocaan oo kale ah ee aan aragno qof Soomaaliyeed gaajo u dhimanaya waa inay noo noqdaan waqti na baraarujiya oo aan ku baraarugno waa inay noo noqdaan waxaan musiibooyinkan kale waa inay na baraarujiyaan musiibooyinkan oo kale sidaan soo sheegay abaartu hadday dhacday 25 sano iyo ka badan ayaan jug isku soo haynay aan hoggaan la'aanahay oo keen ugu xumaa un horboodaya oo bililqana lagu wada haddaan nahay Soomaali xoolaheena la bililqaysanayo oo dalkeena wixii la rabo laga sameeynaya oo dadkeena gaajo u dhimanaya wax isu gurmanaya maanta isin jirin intaasaa musiibo ku soo jirnay waxaan rajaynayaa dhibaatadan dhacday maanta in ay noqoto mid nagu baraarujisa inaan ka fikirno sidaan uga bixi lahayn xaaladda maanta aan ku jirno sidaan uga bixi lahayn xaaladda maanta aan ku jirno waxaan rajaynayaa dhalinyaradu waa u diyaar waayeelkuna waxaan rajaynayaa inay diyaar u noqdaan haddaba walaalayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay inuu musiibadan naga saaro ilaahay inuu maaragtay naga badbaadiyo xaaladdan adag aan ku jirno ma jecli qof ahaan inaan intaa ku ekaado laakiin inta aan rabo maanta inaan sheego waa intaa wixii kaloo aan dhihi lahaa ama aan rabo inaan dhaho insha allah waa iigu xigaan marka soo socdaan dhihi doonaa insha allah waana maqli doontaan ilaahay ha noo badbaadiyo dadkeenna abaarta allah naga badbaadiyo shaqada noo taalla ee ah inaan marxaladdan aan ku jirno iska saarnana inaanu istaagno ilaahay ha nagu hanuuniyo ama ha nagu baraarujiyo waa salaamantihiin intii dhimata allah u naxariisto inteena nool allah noo suurtageliya inaan marxaladdan iska saarno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu